وهجاك إن داود يال دولة فدرال كي سوماليا waxay diiday inay wada hadal la furto dhigeeda Kenya kadib xiisad cusub oo toddobaadkii hore ka dhex bilaabatay labada wadan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale ka cudur daaratay in wafdi ka socda xukuumadda Nairobi ay yimaadaan magaalada Muqdisho si ay u bilaabaan wada xaajoodyo lagu hagaajinayo diblomaasiyadda labada wadan dowladda Soomaaliya waxay ku dooday in aysan la fariisan doonin Nairobi inta ay socoto faragelinta gudaha gaar ahaan maamulka Jubbaland isla markaana ciidamada Kenya ay sii wadaan hawlaha xasilooni darrada ah ee ay ka sameynayaan gudaha Soomaaliya wafdi heer sare ah oo ay qorsheynaysay dowladda Kenya inay u soo dirto Soomaaliya ayaa baaqday kadib markii Muqdisho ay ka cudur daaratay imaanshiyaha xubnahaasi wafdigani ayaa doonayay in ay ka soo hormaraan go'aamo la filayo inay soo saaraan baarlamaanka dalka Soomaaliya kuwaasi oo la xiriira faragelinta Kenya ay ka wado gudaha dalka go'aanada baarlamaanka ayaa la rajaynayaa in lagu saleynayo qadiyada taagan iyo sidii Kenya looga daadoomin lahaa wadanka sida in golayaasha dawladdu ay amar ku bixiyaan in ciidamada Kenya si dhaqso leh looga saaro wadanka tallaabadaasi oo ah mid ugu weyn ee ay ka hortagayso Nairobi tan iyo markii uu soo baxay go'aankii ay dowladda Soomaaliya safiirka Kenya uga cayrisay dalka uguna yeeratay keedii Nairobi waxay soo tarayay hadallada jilicsan ee ka imaanayay Kenya kuwaasi oo u muuqday sida ay u danaynayso in uu si wanaagsanaado xiriirka ay la leedahay Soomaaliya hase yeeshee Muqdisho ayaa ku adkaysanaysa in Kenya ay ku xadgudubtay qawaaniinta caalamiga iyo darisnimada labada dal kadib markii ay faragelin toos ah oo qaawan ku sameysay arrimaha siyaasadda gudaha ee dalka si gaar ah maamulka Jubbaland waxaana warqadda ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya lagu sheegay in aan Kenya lala furi doonin wax wada hadal ah inta ay sii socoto faragelinta ay ka wado qaybo kamid ah dalka nuqul kamid ah warqadda ayaa sidoo kale lagu sheegay in haddii Kenya ay ka dhabayso joojinta faragelinta siyaasadeed ay ka wado gudaha Soomaaliya in markaasi ay Soomaaliduna u darbanaan doonto wada xaajood ay la gasho Nairobi wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Masar Saamix Shukri ayaa si hor u dhaca faahfaahin uga bixiyay kulan uu la yeelanayo wasiiru dowlaha madaxtooyada Soomaaliya Xasan Macalin Khaliif kulankani ayaa yimid kadib markii toddobaadyadii aynu soo dhaafnay warbaahinta qaar ay baahisay in xukuumadda Qaahira ay damacsan tahay in Turkiga ay ku culaadiso Soomaaliya iyadoo kaashanaysa Suudaan iyo Israa'iil Saamix Shukri ayaa sheegay in dowladdiisu ay ka go'an tahay xoojinta xiriirka waqtiga fog kala dhaxeeya Soomaaliya iskaashiga iyo gacansiinta ay u baahan tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya in xilligan lagu garab istaago wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Carabta ee Masar ayaa ka qayb galay fadhigii 31 ee gaarka ah ee golaha guud ee qaramada midoobay oo looga hadlayay xaaladda xanuunka safmarka ah ee COVID-19 wasiirka arrimaha dibadda ee Qaahira oo si hordhaca uga hadlayay kulanka uu la yeelanayo wasiiru dowlaha madaxtooyada Soomaaliya waxa uu sheegay in labada dhinac ay abuuri doonaan iskaashi ku dhisan wada shaqayn kaasi oo sheegay inuu waxtar weyn u yeelan doono labada dowladood dhinaca kale waxa uu ammaanay xiriirka taariikhiga ah ama soo jireenka ee ka dhaxeeya wadamada Masar iyo Soomaaliya oo uu sheegay inay muddo dheer isbarbar taagnaayeen waxaana uu hoos ka xariiqay inay sii socon doonaan wada hadallada labada dowladood kuwaasi oo lagu dhisayo iskaashi caalami oo waxtar u yeesha shacabka labada wadanka Masaarida oo dhaca waqooyiga Afrika ayaa waxa aad u liitay xiriirka kala dhaxeeya Itoobiya iyo Turkiga oo saaxiibo dowla Soomaaliya waana tan keentay in ay degto qorshe siyaasadeed oo ay dib boorka uga jafayso cilaaqaadka ay la lahayd Soomaaliya xukuumadda Qaahira ayaa samaysay dowlad siyaasadeed kadib markii madaxweyne Cabdilfataax Siisi uu la kulmay madaxweynaha Qobrus iyo ra'iisul wasaaraha Greega oo aan xiriir wanaagsan la lahayn xukuumadda Turkiga haddaba waxaan ilaayahay tan loogeyn sida ay dowladda Soomaaliya ula dhaqmi doonto Masar xilli ay xiriir wanaagsan la leedahay
Itoobiya iyo Turkiga oo aysan isjeclayn xukuumadda Qaahira xilligani. Waxaa sidoo kale isbahaysigani uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Masar inuu la sameysanayo Soomaaliya uu ku soo beegmaya xilli dagaal qabow ay ka socdaan bariga Afrika kuwaasi oo u dhaxeeya wadamada Soomaaliya iyo Kenya, Itoobiya dhexdeeda iyo Itoobiya oo dhinaca kale ay iska haystaan Masar iyo Suudaan. Waxaana wadamada jaleecaya siyaasadda geeska Afrika ay goob istiraatiiji u arkaan Soomaaliya, taasi oo wadankii xigsada ay adkaan doonto si looga daadoomiyo gobolka. Dowladda Masar ayaana la tilmaamay in xilligani ay wado isku day ay dib ugu soo nooleynayso xiriir taariikhiya oo ka dhaxeeyay wadamada Soomaaliya iyo Masar, kaasi oo si liicayay dhowrkii sano ee la soo dhaafay kadib markii ay meesha soo galeen wadamada Turkiga iyo Itoobiya oo iyagu dhinaca kale ay xurgufi ka dhaxayso wadanka Masar. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka safatay masaaridda kadib qaraar ku aadanaa webiga Niilka oo ay ku muransan yihiin dowladaha Itoobiya iyo Masar. Xukuumadda Qaahira ayaa xiliyadaasi isciilka ambisay, waxa ayna sheegtay inaysan Soomaaliya oo kula jirta jaamacadda Carabta isla markaana dhinaca diinta ay ka midaysan yihiin in ay lama filaan ku noqotay sida ay ula safatay Itoobiya. balse madaxweynaha haatan haya talada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saaxiib dowla ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed, kuwaasi oo dhowrkii sano ee u dambeeyay noqday saaxiibo isku dhow dhinaca siyaasadda.